شيخ نبا إقبا أيو إيغو وناكسين يهي سوانين وين ويقدأ وين مركي أن قرسانيين دروف بانكو راعي هادانا وان نعي شيخ فرنين مكوعد سنكرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد gabadha muslimada waxaan u malaynayaa hadaysan ku talagayn inaga qosliso si daacadnimo wax u soo qortay marka hore waa iga weynaa waa ka da'yaraa duruuf baan u guursaday haddana waan ka maarmo inaan ka tagaan rabaaye maxay idin la tahay un soo ma inta baa meesha hadda taalaan u malaynaya gabadha muslimada asaasan iyadoon dhibaato jirin oo ninkeeda dhibaato ku qabin in ay furitaan codsato waa shay xaraam ah kabiira min al-kabaa'ir way nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayu imra'atin saalat at-talaaqa min ghayri ma ba'sin fa haraamun 'alayha raa'ihatu al-janna haweenaydii ninkeeda ifur jiraada iyadoon dhibaato aysan haynin jannada ma ursato carafta jannada ma hesho inay gasho iska badaayi waa dambi weyn oo ilaahay looga fogaanayo reer dhisan oo ilaahay kitaabkiisa lagu dhisay dumintiisu waxa ka qayb qaata shaydaan waa ogtihiin ibliisku waagi baryaba carshiga kursiga wuxuu dhigtaa badda bartankeeda ciidankiisu soo diraa wuxuu yidhi dadka muslimiinta soo aafeeya askari baa u iman ibliis askartiisa kamida wuxuu oranayaa hebel baasaan u dirahay walaalkii buu dilay waxa maadan qabanin buu oranaya waxa dhici karta inuu hadhow toobad keeno hebel saan u dirahayeen macsida ugu xayisiinayay khamru cabay wuu zinaystay kanuu sameeyay ilaahi waa ghafuur rahiim inuu toobad keena laga yaaba waxa maadan qabanin buu leeyahay askari baa u iman dambo shaydaana markaas wali heblo iyo hebel oo isqabay baan isku diray say umur mahayeen way isfureen ninkaasuu bila sarafad siinaya nobel prize buu u dhiibayaa midaariyad dahab uu siinaya shaydaanku hawshu ku mashquulsan yahay waa inuu muslimiinta kala dulo guryaha islaamkana dumiyo gabadha muslimada marka looma ogolo in ayadoon dhib qabin ay tiraahdo la ifuro sharcidu halkaas ka istaagtay adaa la iska ilaaliyo gabadhu hadda ninku da' weynaadee subarab haweenka waaweyn buu guursaday kuwa ka yararba waa guursaday calayhi salaatu wasalaam dhaqanka Soomaaliya saasuu iska ahaa waagi hore waxay dhigi jireen ninkii ku dhali kara ayaa ku dhaqi kara soo sidaa ma ahay gabadh yahay haddaadan wadaadka da'mooyeen dhib kale aadan ku qabin inuu ka weyn yahay oo horaanba aad ku gashay mooyeen dhibka aad ku qabin ifur hadhii haddii hawshi guriga uu gabay oo galmadii kala adahay ila wixii la sabsafa loo baahan yahay aad galmadii iyo gogoshi kala adahay oo hawshaasi aad ku dhiban tahay ama dhaqaale iyo wanaag kala aad kala adahay waad codsan kartaa furita wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam